caruurta haddii ilaahay ku siin waayo waa nooc imtixaan oo inaad ku sabirto u baahan oo ilaahay baa adoomadiisa qaarna caruur siiya qaarna ka qadiya kuwa uu siiyeyna waa ku imtixaanay kuwa uu ka qadiyeyna waa ku imtixaanay adduunyaduna waaba imtixaankaasba waxaa waajiba marka inaad u sabirto ood ku sabirto ilaahay qaybtiisa iyo qismadiisa qodobka xiga haweenta muslimadda ah haddii aynan ayadu sidaa la sheegayo ayna dhali karin oo si dabiiciyo caadiya aynan u uraysanaynin ha ahaatee ayada ugxanteeda ama ukunteeda iyo ninka qaba biyihiisa laysku abuuri karo sidaana ilmo ay ku heli karto taa iyada ah culimmada qaybo ka mida waxay leeyihiin dhibaato ma leh waa qaab ilmo loogu raadinayo laakiin waxaa sharti ah ayada iyo ninka biyihiisa laysku abuurayo inay isqabaan baa sharti ah waxaa kaloo sharti ah inay qaabkii caadiga ahaa ayna u dhali karin qaabka bini aadamku uu u tarmo ee dumarku u uraystaan ee iska dabiiciga qaabkaana waa inaysan u dhali karin labada shay ee laysla falgelinayana waa in la hubiyo oo la xaqiijiyo inay labadoodii yihiin isqabay halkaa waxaan ka fahmaynaa labada shay ee laysla falgelinayo hadduu midkood uu ka yimaado labadoodii isqabay cid aan ahayn ama ukuntiibaa waxay ka timid bannaanka ama ninka biyihiisii ma ahee kuwo kalaa bannaanka laga keenay markaasi ilmaha qaabkaasi loo samaynayo waa ilmo xaaraam ah ilmo sharciya ma aha le'anna ukunta iyo biyaha isla falgalayaay xadhig isuma hayo ninkaagu aduu ku qabaa laakiin walaashaa ma qabo wabittaali walaashaa ukunteeda iyo biyaha ninkaaga in laysku abuuro waa ilmo aan sharci ahayn waa ilmo aan sharci ahayn bimujarad inta laysla falgeliyey in la geliyey makaankaaga iyo minkaaga oo halkaa ay ku korana sharciyo ma siinayso waxaa sharti ah inay labada shayba xadhig sharciya isu hayo labada ruux ee manida iyo ukunta leh labadoodaba waa inuu xadhig isu hayo xadhig sax oo sharciya waa inuu isu hayo haddii taa la waayo wixii meesha ka yimaadee ka soo baxa waa xaaraan waxaan ku dhihi lahaa marka walaalle ilaahay khayraa ku siiyee haddiiba ilaahay uusan ku siininba ukuntiiba oo sababtii uurkuba ku imaan lahaa uusan ku siinin waxba hayslu goynin qaybtaa ilaahay iyo qadartaa uu kuugu talagalay ku sabir isaga dulqaado isaga adkayso in sha allahu tacaala muxuu ahaaye ilaahay caaqibadaada ha hagaajiyo sidaadaasi ku khaatumayso in sha allahu tacaala laakiin dariiq khaldan ha marin